dowladda hoose xamar ayaa soo bandhigtay dhammaan gaadiidka kala duwan ee heeganka ugu jira maareynta magaalada iyo u diyaargarowga roobabka mihigaanka ee la saadaaliyay in uu dhowaan di'i doono kaas oo la sheegay in uu wato dabeelo xoogan lagana cabsi qabo in uu saameyn ku yeesho caasimadda iyo qaar ka mid ah gobolada dalka. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeer uu korgalayay xaaladda caasimadda ku maray qeybo badan oo kamid ah wadooyinka magaalada muqdisho iyadoo ay kormeerkaasi ku welinayeen gaadiidka kala duwan ee loo diyaariyay arrimaha la xiriira maareynta masiibooyinka iyo bilicda caasimadda. kormeerkaasi kadib waxa uu duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Filish booqday xarunta gaadiidka dowladda hoose xamar iyo warshadaha booqashadaasi oo ay ku welinayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo agaasimayaal ka tirsan dowladda hoose xamar. waxa uuna warbixin quseeya xaaladaha gurmadka degdega ah iyo u diyaargarowga roobabka la filaya ka dhageystay agaasimayaasha gaadiidka iyo dabdamiska. mudane gudoomiye waxaan maanta heegan buuxa gelinay dhammaan shaqaalaha gurmadka degdega iyo gaadiidka gurmadka degdega oo isugu jira dabdamisyada, ambalaasyada, booyadaha iyo agabka kale sida cagafyada iyo gaadiidka kale loo isticmaalo meelaha ay wax ku xanimaan shaqbaalka dhibaatooyin ka dhaco. runtii mudane gudoomiye shaqaalahan waa shaqaale 24 saac xeegan ku jira. waxaan u diyaarinay qaab shifti ah ama nidaam shifti ah 24 saac ay ku jirayaan shaqada. gaadiid ahaan annaga noocyada kala duwan ee gaadiidka waxaan haynaa ilaa 170 gaadiid ah. tirada guud marka loo hadlo waaye qaar dhaqangal ah, kuwa howlgab ah iyo kuwa hadda shaqeeya isugu jiraan insha Allah tacaala. gaadiidkaas hadda mahadi ha ka gaarto qarashka aad soo hormarisay 20,000 gaadiidka hadda maanta inoo shaqeynaya kuwa degmooyinka jira oo nadaafadda kala shaqeeya sida gaarka ah, kuwa wadooyinka Maka al-Mukarrama iyo wadooyinka kale muhiimka ka shaqeeya, kuwa ka shaqeeya insha Allah tacaala goobaha maaragtay bulaacadaha oo biyaha qaada, kuwa nadaafadda xeryaha ama dawladda mas'uuliyiinta ka qaada. intaba gaadiidka hadda noo diyaarshan waa 35. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan Sheekh Cali Fiido ayaa kamid ahaa mas'uuliyiinta goobta ka hadlay. xarada dawladda hoose ee gaadiidka dawladda hoose iyo qalabka dawladda hoose iyo warshadaha dhammaan ay yaaleen oo galabta lagu soo bandhigayo gaadiidka dawladda hoose birta culus iyo kuwa gurmadka degdega ahaa oo dib u dayactir lagu sameeyay dhammaanna la wada howlgeliyay una diyaara inay u adeegaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir sidii horeba ay ugu adeegi jireen dhammaantood ayagoo wada nadiif ah wada shaqeynaya ayaa galabta halkan lagu soo bandhigay. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu ka hadlay sida ay dowladda hoose xamar diyaar ugu tahay in ay bulshada ugu qidmeyso si hufan. dhammaan qalabkeenu mid iyo laba maahan inta kale inay diyaar noo yihiin. waxaan loo sheegay berrito oo ah 4 December inay roobab mahigaan ah ay nagu soo socdaan. marka si loogu diyaar garoobo waxyaabaha imaan kara oo bulshada waxyaalaha u ah ayaan u diyaarinay dhammaan gaadiidka qaybaha kala gedisan ee gobolka banaadir. waxaan halkan uga mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud, agaasimaha guud ee howlaha guud iyo dhammaan inta ka shaqeysa arrimaha howlaha guud. sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo xogeyaha guud iyo agaasimayaasha dhammaantood oo si isku duubni ah u soo bandhigay howlkarnimo, daacadnimo. taas ayaana ah midda noo suuro gelisay inaan dhammaan dib u istaarno waxyaabihii naga kala daadsanaa ama naga ciladeysnaa ee ay lahayd dowladda hoose. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.